dad badan ayaa aaminsan in caruurta stress uusan ku dhici karin maadaama ay yar yihiin wax ay ka fikiraanna uusan jirin. Aqoon u yeelo waxyaabaha caruurta stresska u keena, astaamaha lagu garto iyo talo ku saabsan waalidiinta. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام دمان أصحابتي كحيران يوتيوب كنا مجعي وعياندول أنا هو دكتور جوهري كسر يوتيوب channel كنا هذا نوع عصب تاي وكسر دويني ناقف لسر دويني أديك أو قيمة بدن هذا هرون ولا جبتنا حقولين هاي welcome back to another video. dad badan ayaa aaminsan in caruurta aysan diiqad iyo niyad-jabtoona ku dhici karin maadaama ay yar yihiin wax ay ka fikiraan aysan jirin. taasi waa fikrad khaldan. caruurtu way u nugul yihiin inuu stress ku dhaco, wayna adag tahay sida fudud ee lagu ogaan karo haddii uusan waalidku aaminsaneen in uu ku dhici karo caruurtiisa stress ama niyad-jab. waxyaabo badan oo ay dadku waaweyn u adkeysan karaan ama ay la tacaali karaan ayaa caruurta ku keena stress. waxyaabaha ugu badan ee caruurta saameynta ku reeba waxaa ka mid ah in ilmaha iskuulka lagu dhibaateeyo, taasi uusan awoodin inuu u sheego waalidkiisa dhibaatada haysata. waxyaabaha kale waxaa ka mid ah in guriga uu ka jiro buuq fara badan, waalidiintoo isdagaashan, waalidka oo caruurta hortooda isku fura iyagoo caqli leh, ama caruurta oo hooyadood hortooda lagu dhibaateeyo ama lagu garaaco. sidoo kale waxaa ka mid ah ilmaha oo waalidkooda laga kaxeeyo, khaasatan hooyadood, loona geeyo qof kale aysan garanaynin. waxaa kaloo ka mid ah in caruurta niyadda laga jibiyo, si jir ahaan iyo maskax ahaan intaba dadka hortooda loogu ceebeeyo, taa oo keenta in bulshada qaybaheeda kale inay ka go-aan. sidoo kale waxaa ka mid ah waxyaabaha niyad-jabka ku keena caruurta in isbedelka nololeed ee ku yimaada caruurta, taasi oo ah haddii ay laga kaxeeyo bay-adii ay ku koreen lana geeyo bay-a kale aysan garanaynin, halkaasi uu ku waayo asxaabtiisii iyo dadkii hore uu u garanayay. waxaa kaloo ka mid ah in caruurta qof ay jecel yihiin in uu ka dhinto, sida waalid iyo walaal intaba, taana ay ku keento in cunugii inuu dareemo stress iyo diiqad badan. sidoo kale waxaa ka mid ah in caruurta la garaaco sabab la-aan ama lugta laga xiro. waxyaabaha kale ugu daran waxaa ka mid ah in cunuga la saaro mas-uuliyad uusan xamili karin, kadibna lagu ciqaabo haddii uu ka gaabiyo. waxyaabaha lagu fahmo in cunuga uu niyad-jabsan yahay ama stress ku jiro waxaa ka mid ah in cunuga lagu arko cunto xumi iyo madax xanuun. in cunuga lagu arko isku kaadin aan horey lagu aqoon. waxaa kaloo ka mid ah in cunuga lagu arko hurdo la-aan iyo qarow badan. sidoo kale waxaa ka mid ah in cunuga lagu arko calool xanuun iyo matag joogto ah, taasi oo aan keenin cudur. waxyaabaha kale ee lagu arki karo calaamad ahaan waxaa ka mid ah in cunug lagu arko cabsi laga qaado waxyaabo caadi u ahaan jiray, sida mugdiga, kelinimada iyo dadka cusub. sidoo kale waxaa ka mid ah in cunuga lagu arko fikir iyo maqnaasho weliba markii lala hadlayo. waxaa kaloo ka mid ah in cunug lagu arko oohin fara badan oo aan sabab lahayn. sidoo kale waxaa ka mid ah in cunuga lagu arko inuu waxbarashada ku liito weliba si lama filaan ah. waxyaabaha kale lagu garan karo waxaa ka mid ah in cunuga lagu arko madax adayg iyo dabci qalafsan oo aan hore lagu aqoon. sidoo kale waxaa ka mid ah in cunuga uu ku dheganaado hooyadiisa uu ka fiqi waayo, taasi oo ah arrin cusub aan horey lagu arag. markan waxaan u gudbaynaa sidee waalidka ula tacaali karaan caruurta noocaan ah. waxyaabaha lagula tacaali karo waxaa ka mid ah dhibaatooyinka ugu badan ee raadadka ku reeba caruurta waxa ay ka dhashaan guryahooda. sidaa darteed waalidiintu waa in ay ku dadaalaan sida ay gurigaasi uga dhigi lahaayeen mid nabad iyo xasiloonid ay ka helaan caruurtooda. caruurta oo lala sheekaysto ama la dhagaysto waxay waalidka ku caawinaysaa inuu ogaado xaaladda cunugiisa uu ku sugan yahay. cunugana waxay ku caawinaysaa inuu ku dhiirado inuu waalidkiisa u sheego waxyaabo uu isleeyahay haddaad u sheegto waa lagu dilayaa. sidoo kale waalidiintu waa inay iska ilaaliyaan inay isku dhex dagaalaan caruurtooda dhexdooda ama ay isku dhacaan, waa inay ka qarsadaan dhibkooda caruurtooda. ka taxadir barnaamijyada caruurta ay ka daawadaan tviyada iyo shaashadaha, taasoo dhibaatooyin baaxad weyn leh ka dhaxli karaan. sidoo kale kala tasho isbedelada ku yimaada caruurtaada, una sii sheeg haddii guriga laga guuri rabo ama lagu kala tagi rabo. waxyaabaha kale waxaa ka mid ah ku beer cunugaada kalsooni iyo inay agtaada qiimo ay ku leeyihiin iyo bulshada dhexdooda intaba. kana ilaali ereyada niyad-jabka ku keeni kara, sida doqon ayaa tahay, wax matare ayaa tahay, hebel ayaa kaa fiican, wax noqon maysid iyo wixii la mid a.
sidoo kale u ogolow caruurtaada marmarka qaar inay ra'yi yeeshaan, ra'yigaasi hadduu saxan yahana in la qaato, taasina waxay u keenaysaa inay helaan kalsooni fiican. Haddii ra'yi ay qaateen stress ay kala kulmaanna way fududaanaysaa si loola tacaalo. haddii ay dhib kugu noqoto inaad fahantid xaaladda cunugaada uu ku sugan yahay, waxaad garab ka raadin kartaa dhaqaatiirta ku takhasustay cilmu nafsiga carruurta. haddii cunugaada aad ka dareento dhaqan xumo kaa yaabiya, sida inuu guriga ka bixi waayo, waxbarashadiisii oo hoos u liidata, inuu bulshada uu ka go-o, dagaal oo aan hore loogu aqoonin, caajisnimo fara badan iyo wixii la mid a, waxaad ogaataa in cunugaada inuu ku sugan yahay xaalad stress ah. markaasi waxaad u baahantahay inaad la xiriirto dhakhtarka ku takhasusay cilmu nafsiga carruurta. waxyaabaha aan kor kusoo xusnay gebi ahaan waxay tusaale u yihiin in xal laga gaaro, in cunugaada inuu helo xaalad caafimaad oo fiican, inuu ka baxo xaaladda stresska oo dhib ku haysa, taa oo hoos u dhigaysa waxbarashadiisa iyo nolosha bulshada oo intaba laga rabay in uu la qabsado gebi ahaan. cashirkeena maanta xaqiiqatan waxaan ugu talagalnay in aan isbeddel dhab ah oo xaqiiq ah aan ku sameyno carruurta iyo jiilka soo koraya oo noqon lahaa beri madaxweyne, ra-iisul wasaare, xildhibaan, wasiir, intaba si waalidka Soomaaliyeed dhammaan dalka iyo dibadda meel walba ay ka joogaan ay u qaataan talooyinka iyo waanada intabaan usoo jiidanay carruurtooda caafimaadkooda iyo xaaladooda ay wax ugu bedelaan. inaad iska joojisaan waxyaabaha aad aaminsan tihiin oo ah in carruurta inaysan stress uusan ku dhici karin, oo ah arrin gebi ahaan aada u qaldan. carruurta stress uu ku dhici karaa sida cashirka aad kaga barateen, dhibaatooyinka ay la kulmaan. waxaan runtii anaga waxaan idiin sheegnay o dhan waa wax bulshada cilmi ahaan aan ugu soo qaadanay, daraasa aan bulshada ka dhaxalnay ayay ahayd waxaan idiin soo gudbinay. waxaan rajaynaa insha allah inaad ka faa'iideen, anigoo ah Dr. Jawhari iyo anigoo ah Ayaan Dhool. haddii ay tahay markii kugu horeyso aad soo boqoto YouTube channelkeena, fadlan subscribe sar, videoga like gare, anagana si dhiirigelin noogu noqoto. aada u mahadsantihiin. qayb ka noqo ama ku soo bir familka Dr. Jawhari iyo Dr. Ayaan Dhool YouTube channelkeeda. aad u mahadsantihiin. intaan muuqaalkan mid lamid aan ka kulmayno, nabaddiino.